Moa Waste International oo aad horay uga barateen adeegyo caafimaad oo heerkoodu sareeyo ayaa hadda ku ogeysiinaya inuu ka guuray xaruntii hore. Isbitaalka Moa Waste International ayaa laga furay Tennis Street ee xaafadda Islii. Wuxuuna isbitaalku degan yahay 4 ka mid ah dabaq ka kooban 12 biyaano. Moa Waste International ayaa ku haya adeegyo uu heerkoodu sareeyo, waxaana intaa dheer in lagu soo kordhiyay qalab caafimaad oo aad u tayeysan. qalabka baaritaanada ee lagu soo kordhiyay isbitaalka ayaa ah kuwa casri ah oo aan weli noocooda lagu arag gudaha dalkan Kenya, kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka lagu ogaado xanuunada ku dhaca kaliyaha, wadnaha, beerka iyo inta badan urku jirta. waxaana isbitaalka ka howlgala dhakhaatiir ka timid dalalka qaaradda Yurub sida dalka Jarmalka oo ka mid ah dalalka ugu horeeya caafimaadka caalamka oo dhan. isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo qaabilsan adeegyada degdega ah, bukaan socodka, bukaan jiifka, qaybta dhallaanka iyo qaybta haweenka umulayo. Moa Waste International Hospital wuxuu kaloo ku hayaa adeegga caymiska caafimaadka qaran ee NHIF-ka, kaasoo qofkii kaar wata uu si fudud isugu daweyn karo. haddaba kaalay oo maantaba soo arag Moa Waste International Hospital si aad u hesho daweyn iyo talooyin caafimaad. wixii faahfaahin intaasi dheerna kala soco nambarada shaashada kaaga muuqda. kulanti wacan oo wanaagsan dhamaantiin baa meel walba naga daawanaysaan khiyaarteena la socotaay ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga ee maqal muuqaal baahiyaha STN xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi oo si toos ah uga daawataan habeen walba anagoo markaas idiin soo gudbino qodobo kala duwan oo aad u xiiso badan. caawa kale jimcaha daawadayaal waxaad inooga barateen qaybtii caafimaadka ee baajiri xasanada la soo koobi karin ha ka siiyo Dr. Cali Buuco Aweys iyo xaruntiisa Moa Waste International Hospital markaas iyaguna martida inoogu ahaayeen inagoo markaas soo qaadna waxyaabo aad u kala duwan oo markaa ku saabsan dhinaca iyo waliba sidoo kale waxyaabaha caafimaadka markaas laga maarmaanka oo ah bulshooyinka kala duwan si markaas iyaguna dadku ay uga faa'iideystaan fursadaha ay u helayaan Dr. Cali Buuco Aweys iyo waliba sidoo kale hawlaha kale markaas iyaguna ama talooyinka iyo tusaalooyinka caafimaad ee uu siinayo. sida caadada ahayd barnaamijkana wuu inoo qaybsanaan jiray taasoo ahayd markaasi 3 qaybood oo qaybta hore aan ku soo qaadi jirnay xanuunka COVID-19 sidii aad la socoteen ee toddobaadkan gudihiisa wasiirka caafimaadka ee dalka Mutahi Kagwe watii markaasi isaguna warbaahinta uu ka hadlay isagoo oo sheegay markaasi in la helay kiisas badan oo kamid ah xanuunka COVID-19 sida darteedna markaasi iyadu la soo celiyo afxirkii oo dadku markaasi ay kala dheeraashihii afxirkii markaasi sameeyaan sidoo kalena markaasi lagu dadaalo gacmo dhaqa iyo waxyaabaha la midka taasi waxa markaasi ay cadeynaysaa in wali xanuunku uu jiro oo saameynteeda uu ku leeyahay guud ahaanba dhinaca wadanka. sidoo kale markaasi wasiirku waxa kale uu sheegay in xilligan la galay xilli qabooba ah taasina ay keenayso in xanuunku uu sii faafo isla markaana waxyaabo badan ay dhacaan iyadoo markaasi uu dadka ku baraarujiyay kala fogaanshaha xirashada markaasi dharka dhaxanta loogu talagalay iyo waliba sidoo kale in markaasi hargabka iyo waxyaabaha la midka la dagaalamo taasoo markaasi uu sheegay in la isticmaalo cunooyin dhameystiran iyo waxyaabo la mid ah. Dr. Cali Buuco Aweys ayaan mar kale isaguna u deyn doona arrimahaas oo talooyin kale inaga siin doona caawa hadduu alla idmo iyo markaasi qaboobaha saameynta uu ku yeelan karo dhinaca corona iyo waxa iminka mar kale soo laba kaclay xanuunkaasi uu ku soo kordhiyay gudaha wadankan Kenya. intaa kadib waxaan u sii gudbi doonaa qaybtii kale ee barnaamijka markaasi iyaduna aanu kaga hadli jirnay markaasi qaybtayadii guud ee caafimaadka markaasi iyadu muhiimada koobaad inoo lahayd iyo mid gaarka ah taasoo markaasi habeenadii la soo dhaafay oo dhan aan aad uga soo hadlaynay arrimaha la xiriira xanuunada kala duwan ee dhinaca dumarka taasoo markaasi aanu ka soo bilownay ciideena la socotay ama aad inoo xasuusato marka thyroidka oo marka kadibna aan u soo gudubnay hormoonada kala duwan ee dhinaca dumarka kadibna markaasi waxaan u soo gudubnay qaybihii kale ee ugu dambeeyay habeenkii markaasi ama toddobaadkii la soo dhaafay markaasi iyaduna aanu ka hadlaynay oo markaasi iyaduna minka iyo burooyinka iyo waxyaabaha kala duwan iyo burbuyeedkii hadday ahayd oo markaasi iyaduna aanu aad uga hadlaynay oo toddobaadyadii la soo dhaafay markaasi aad la socoteen. caawo ayaan soo gabagabayn doonaa qaybta haweenka hadduu ilaahay raalli ka noqdo anagoo usii gudbi doono qaybaha kale ee markaasi xanuunada kala duwan ee iyaduna muhiimka ay tahay inaan mar walba sharaxno oo bulshada markaasi ka wacyigelino. waxaana markaasi caawo soo qaadi doonaa dhalmada oo ugu dambaysa maadaama markaasi habeenkii imika la soo dhaafay burbuyeedyada haweenka qaabkii uurka ku qaadi karaan iyo waxyaabaha la midka aynu ka hadlaynay taasoo markaasi iyaduna keentay markaasi uurka kadib maxaa dhici doona oo ah markaasi dhalmada iyo waxyaabaha la midka. haddaba maxaa looga baahan yahay haweeneyda maalinkay uurka qaado ilaa iyo maalinta ugu dambayso ee markaasi ay dhalmada tahay hadday tahay dhinaca caafimaadka iyo waxyaabaha la midka anagoo markaasi nuujinta iyo waxyaabaha la midkaana qayb ka soo qaadi doona caawo oo markaasi awlaada dhalmadooda kadib iyaduna ay noqon doonto maadaama caawo qaybtii haweenka aan soo gabagabayn doona hadduu alla idmo oo markaasi qaybo kale iyaduna aan idiin soo xuli doono dhinaca barnaamijkayga. qaybtaas ayaan iyadana sidoo kale muhiimad gaar ah siin doonaa oo markaasi iyaduna aanu ka hadli doonaa hadduu alla idmo. waxaa kale oo iyaduna ugu dambeyn doonta qaybtii telefoonada
oo markaasi adinkuna fursadda ugu badan ama ugu ballaaran aad u haysataan daawadayaal, taasoo markaasi qof walba oo inaga mid ah ama idinka mid ah uu isaguna khadka telefonka soo garaaci karo, telefonka shaashada idinkaga muuqda weeye, markaana aad fursad u heli kartaan inaad doctorka toos aad u weydiisaan su-aasha aad qabtaan, hadday tahay xanuunada kuwa iminka aanu ka hadlayna dhalmooyinka la xiriira iyo kuwa ka baxsan ee markaasi iyaduna sida gaarka aad uga cabanayso oo fursad kale aad u haysato inaad halkan kula kulanto Dr. Cali Macow Aweys oo si toos ah adiga afkaaga su-aashaada aad ugu weydiisato bedelkii qof kale aad u mari lahayd, isaguna jawaab sax ah oo ku habboon oo markaasi isaguna ku siin karo. intaa marka laga soo gudbo ciddii markaasi si gaar ah iyadoo ugu baahan inay Dr. Cali Macow Aweys la xiriirto, emailkiisa iminka shaashada ka muuqda oo si toos ah iyaduna aad ula xiriiri kartaa, taasoo markaasi wixii email aad u baahan tahay haddaba aad soo diri karto, doctorkuna markaasi uu kaa gudoomi karo warqadaada iyo fariintaada, kadibna wixii su-aal ah ee aad qabtay isaguna jawaabteeda si degdeg ah uu gadaalkaaga soo celin doono. marka intaa laga gudbo isbitaalka Macow Aweys International Hospital wuxuu ku yaalaa xaafadda Islii, gaar ahaan 10 Street, oo markaasi halkaasi aad ka heli kartid dhinaca iyo waliba sidoo kale Moyo Peska ayuu ku yaalaa. markaad wadada tanka gashid dhinaca aad ka gashid Obama Studio, haddaad wax yar horey usii socoto daarta dheer ee markaasi pinkiga white isugu jirta macdaanka ayaad arki doontaa oo markaasi ahba midda areada ugu dheer oo markaasi Macow Aweys International Hospital ay ku qoran tahay, halkaas oo kala xiriiri karto. waxaana markaas halkaa ka helaysaa qalab dhammaystiran oo dhinaca caafimaadka la xiriira, taasoo markaasi ay ka mid yihiin kuwa lagu baaro kaliyaha, beerka, wadnaha iyo waliba sidoo kale dhinaca caloosha iyo dhammaan inta kale ee xanuunada uur ku jirta oo markaasi iyaduna si dhab ah aad u heli kartid ama markaasi dawooyinkeeda iyo waxyaabaha la midka iyadana lagu siinayo. waxaa aad muhiim u ah oo rabaa inaan markale u sheego dadka ka cabanaya xanuunka gaaska oo markaasi kamid ah kuwa saameynta badan uu ku haya dhinaca gaaskana, waxaa loo hayaa dawooyin aad iyo aad u tayeysan oo doctorku markaasi ugu talagalay, kuwaas intooda badan laga keenay qaaradda Yurub oo ugu horeysa wadanka Jarmalka. waxaa kaloo intaas dheer tubada gaaska loo isticmaalo oo markaasi dadka la geliyo si loo ogaado bal xanuunka gaaska ay qabaan dadkaasi iyaga inta uu marayo ama heerkiisu inta uu gaarsiisan yahay, ilaa iyo tubadaas oo takhasuskeeda doctorku uu haysa muddo aad u fara badan, dad fara badanna uu u isticmaalay, kuwaasoo ilaahay gacantiisa uu dawo markaasi iyaguna ugu daray oo markaasi ka caafimaaday. haddii ay ku hayso sokorta, talooyin iyo waxyaabo lamid ah lagu siinayaa, dhiigkarka oo kale dadka iyaguna qaba sidoo kale daweyn iyo tusaalooyin caafimaad ayaa la siinayaa. waxaa kaloo goobtaasi ka maqnayn dhalmada haweenka oo markaasi iyo waliba sidoo kale daweynta dhinaca iyo waliba sidoo kale dhallaanka, waana qayb markaasi loogu talagalay bukaan socod iyo bukaan jiif oo 24 saac uu yahay isbitaal shaqeynayo. waxaa intaasi markaa iyadana kusii dheer markaasi kaarka caymiska caafimaadka ee loo yaqaano NHIF-ta oo adiguna haddaba aad ka heli kartid xaruntaasi Macow Aweys International Hospital oo markaasi wax kasta oo aad doonaysid iyaduna inaad isaga daweyso halkaasi aad ka heli kartid. farmashi dawooyinkiisa ay u dhammaystiran yihiin, qalab baaritaan iyo waliba sidoo kale isbitaal adeegiisa u dhammaystiran yahay oo heerkiisu u yahay level 4 oo markaasi isagu levelkii 5aad aysan waxba uga dhiman. qaliinada ayaa sidoo kale lagu sameeyaa iyadoo markaasi aad ka helaysid dhakhaatiir takhasus u leh xanuunada markaasi adiguna aad doonaysid inaad iska daweyso. haddaba wixii macluumaada oo intaasi dheer haddii aad doonaysid, nambarada shaashada ka muuqda xilliga xayeysiiska kadib ayaad iyaduna heli doontaa oo markaasi si rasmi ah lambaradaasi u qoran doontaa, adigoo markaasi ay ku fududaanayso inaad toos ula xiriirto isbitaalka Macow Aweys International Hospital ama aad booqato oo ay ku fududaato meesha uu ku yaalo haddii markaasi gobollo kala duwan oo dalka aad ku sugan tahay, si markaasi xaaladaada caafimaad iyadana loola socdo oo mar walba aad uga shaqeyn karta adiguna wanaagaaga iyo caafimaadkaaga heerka markaasi isaguna uu ku salaysan yahay. waa hagaag daawadayaal, intaa oo dhan haddaan kasoo gudubno mar kale aan soo wada dhaweyno annagoo isku duuban Dr. Cali Macow Aweys si aan usii ambaqaadno qaybaha kale ee dhinaca barnaamijkayga. soo dhawo doctor. بسم الله الرحمن الرحيم. maxamed ibaar diiriye aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo STN Star TV shaqaalaheedii iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaan adduunka dacaladeeda inaan iraahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin fursaddan wanaagsan aadna siinaysaan aan ummadda Soomaaliyeed tala dhakhtar aan ku siinayno. intaas markii laga baxo raallihow waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba adduunka dacaladeeda khaasatan reer Kenya oo waqti xaadir aan la joogo inaan iraahdo khaasatan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور علي معو أوي سو دوان كلنا مركلة وما تنيه دكتوركو بالمركلة أن دكتورك قاعد صدو إن بالحالة مركزي سكر دي حنوك كوفيد 19 كا قبوجة إيمين كتشرو هرجبك إيه حالة صدن ومركلة بالأسوأ إنه دول مرة دو الله أود اللي يرادو سيب الواحد بدن نجو أوجانو تلوين كدكتور كان عن قادنو واحد وجاتا تلوين كعافماتك أو لقاته إنه تهاي
ama muhiimad gaara ay u leedahay ka hortagga xanuunada iyo dhibaatooyinka kala duwan ee markaasi jira ama saameynta ku leh guud ahaanba ee dhinaca bulshada. waana arrin markaasi sahlaysa in markaasi caafimaadkaaga uu sare u qaadmo, sidoo kalena caafimaad darradu markaasi iyadana ay yaraato. xanuunka covid dadku intiisa badan weli waxay aaminsan yihiin inuu ahaa wax hargab la mid ah iska baxay oon dib dambe usoo noqonayn, laakiin waxaad ogaataa daawade weli inuu yahay mid dalka ku jiro, digniinihiisa iyo khataraha uu leeyahayna weli laga sii degayo. soo dhawo markale doctor. بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبار ديري مر كوبات مر لبات مر سدحات يا بنكو ما العلنا يا مر كان دي بقصة إنه توبيكا ربنا ينامكم بلونه كورونا فيروس ساد أكتين كورونا فيروس هذا مدة أيو نود بجدا مر بمقعو بدلنا يا مر بس كله نوع كله أيو إيمانا يا مر كحد وقت الحاضر ما لا خبوها إيمان ضونا يرب hadda laga feejignaanayaa oo la leeyahay war iska jira qabooba hadduu yimaado waa in laga taxadaraa, waa in tilaal laga qaataa, tilaal qaas ah in la qaataa. cudur la yidhaahdo omicron oo hadda ugu dambeeyey markii hore alfo ahaa, gama yimid, delta yimid, hadda omicron la yidhaahdo waqti alxaadir mid aad iyo aad u dhib badan oo duufkaa soconaya 24 saacadood, lafa xanuun, murqa xanuun, neerfahaaga ku xanuuna, culays fara badan iyo jiif aan laga kacayn. omicronka laftigiisa oo la yidhaahdo 4 and 5 4 iyo 5 yurub ayuu kasoo tilaalmay oo kasoo kacay, weliba khaasatan UK iyo Bortugiiska ayuu kasoo kacay. hadda yurub oo dhan buu ku jiraa. wixii yurub yimaadana meeshaan maalin walba diyaarada lagugu keenayaa oo way iska socotaa, diyaaradaas socota maalin walba wax bay wadataa. marka dhulkan hadda aan joognana mataqaanaa Nairobi na qabow waaye, aad bay qabow isu noqotay. qabowgaas ayaa waxa ah kii sahli lahaa inaad si fudud u qaado cudurkan. hadda omicron 4 iyo 5 dila laguma sheegi karo, ilaah baa wax dila, caafimaadna allah haya, cudurna allah keena, laakiin cudurku dhibayo waaye oo ku dili karo. weliba haddii cudurna aad qabto waa ku dilayaa, ama hadduu hore kugu dhacay oo kugu dhacayaa dhibaatuu ku gaarsiinayaa adiga oo aad maalin walba aadan ka shaqaysan karin, aadan ka dhaqaaqi karin, aadan ka socon karin. marka cudurkan cudur la fududaysan kara maaha. waxaan leeyahay haddaad ku nooshahay Nairobi iyo meelaha qabowga ka afka ka xiro, gacnahaaga ka dhaqo, ka dheerow ummadaas ilaa ma aragtay laga gaaro bisha Agost dhammaadkeed sidii wasiirka caafimaadkaba uu sheegay. marka waxaad yeelaysaa hadda dad fara badan, aad u fara badan ayaa haya magaalada Nairobi. anisaan ogahay iska jira cudurkan cudur fudud maaha. waa hagaag, waad mahadsan tahay doctor. haddaan isla arrintan su-aal kaa weydiiyo, xanuunkan waxaa la aaminsanaa inuu waddanka kasii yaraaneeyey. waa tii talooyinka caafimaadka iyo waxyaabihii la bixiyay ay ka mid ahay dadku inay maaskiga iska furaan, si caadi ana ay u socdaan la kala dheeraadasi oo faradhaqi waxyaabaha lamidkaa lagu dadaalo. hadda in maaskigii lasoo celiyo khatara iyo digniino cusubna ay yimaadaan, maxaa keenay? waxaa keenaya maxamed cibaar diiriye aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa. waxaa keenaya waxa weeye cudurkii yurubaa lagu ogaaday 4 iyo 5 omicron 4 iyo 5 inuu yahay bahal khatar ah oo dhibaato ku gaarsiin kara. sanbabkoo dhibaato kaa gaarsiinaya, wadnahoo kaa gaarsiinaya, neerfuu kaa gaarsiinaya, ma shaqaysan kartid, cudur buu kugu reebayaa aan la sheegi karin, culays fara badan. haddii adiga aadan iska adkeyn, aadan dhaqaaqayn, ma socon kartid, xataa socodkii uu ku diidaya. marka cudurka cudur fudud maaha, waa mid adiga ku fariisinaya, fadhi ku dhahaya fadhi. haddaad fadhiga badsatana waa curyaamaysaa, socod aa la rabaa, laakiin laba inaad isdhibto waa ku diidaya, ha isdhibin buu ku leeyahay, jiif. marka cudurkan cudur fudud maaha, waa in lala dagaalamaa. marka dad badan ma la dagaali karaan. marka hadda waxaa loo soo celiyay wax kale maaha, cudurkii waxaa la ogaaday inuu saaqayo, si fudud u soconayo. cudur saaqo oo bandemia la yidhahda, hadduu saaqana waxa waaye dhibaato fara badan oo gaarsinaa dad fara badan. haddii oo ka dhigba 20 qof oo ku dhaco 5 inuu dilaa dhici karto, 5 iyo 10, laakiin 5 cudur uu ku reebo 10 inay ka badbaado. qabowgina waa ka faa'iidaysanaya. qabowga ayaaba ugu daranba. haddana qabow zaa'idaa jira. hadda maanta oo kale qabow zaa'idaa jiray,
marka cudurkan cudur fudud maaha ha laga taxadaro. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Cali Macow Aweys. daawadayaal sidaad maqlaysaan markaasi digtoonaan ha laga galo dhinaca xanuunkaasi oo talooyinka doctorku uu soo jeedinayo iyo dadka kale caafimaadka ka shaqeeyaba in la qaato iyadana aad iyo aad ayay muhiim u tahay. haddaad Nairobi area-deeda ku sugan tahay qaado markaasi iyadana dharka dhaxanta loogu talagalay iyo cunno markaasi waqtigeedii iyadana loogu talagalay ama markaasi adag oo aad wax isaga difaaci karto inaad iyadana qaadato sida markaasi dhakhaatiirtu iyo waliba wasiirka caafimaadka uu sheegayo. wali barnaamijkeygii ayaynu ku guda jirnaa fari kama qodna qaybtii ugu muhiimsanayd ayaa markaasi inoo hartoon caawa kaga hadlaynay dhinaca iyo dhalmada ee haweenka oo gordhow inoo imaan doonto hadduu aan laydmo u diyaar garooba. Mo Aweys International oo aad horay uga barateen adeegyo caafimaad oo heerkoodu sareeyo ayaa hadda ku ogeysiinaya inuu ka guuray xaruntii hore. Isbitaalka Mo Aweys International ayaa laga furay Tennis Street ee xaafadda Islii. wuxuuna isbitaalku degan yahay 4 ka mid ah dabaq ka kooban 12 biyaano. Mo Aweys International ayaa ku haya adeegyo uu heerkoodu sareeyo waxaana intaa dheer in lagu soo kordhiyay qalab caafimaad oo aad u tayeysan. qalabka baaritaanada ee lagu soo kordhiyay isbitaalka ayaa ah kuwa casri ah oo aan wali noocooda lagu arag gudaha dalkan Kenya, kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka lagu ogaado xanuunada ku dhaca kaliyaha, wadnaha, beerka iyo inta badan urku jirta. waxaana isbitaalka ka howlgala dhakhaatiir ka timid dalalka qaaradda Yurub sida dalka Jarmalka oo ka mid ah dalalka ugu horeeya caafimaadka caalamka oo dhan. isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo qaabilsan adeegyada degdega ah, bukaan socodka, bukaan jiifka, qaybta dhallaanka iyo qaybta haweenka umulayo. Mo Aweys International Hospital wuxuu kaloo ku hayaa adeega caymiska caafimaadka qaran ee NHIF-ka kaasoo qofkii kaar wata uu si fudud isugu daweyn karo. haddaba kaalay oo maantaba soo arag Mo Aweys International Hospital si aad u hesho daweyn iyo talooyin caafimaad. wixii faahfaahin intaasi dheerna kala soco nambarada shaashada kaaga muuqda. وهاجاك waxay la tahay qof walba inuu ka faa'iideystay nambarada markaasi shaashada ka muuqda uu qof walba qoran karo si markaasi isaguna bari ka maalin uu uga faa'iideysto doctorka uu la soo xiriiri karo ama toos isbitaalka Mo Aweys International Hospital iyadana uu la xiriiri karo. وهاجاك daawadayaal aan ku soo noqono qaybtii ugu muhiimsanayd ee dhinaca barnaamijkeega sida aad la socoteen toddobaadkii ina dhaafay waxaanu aad uga hadlaynay arrimaha la xiriira dhinaca burooyinka kuwaas oo minka saameyn ku yeesha gaar ahaan burobiyoodka oo markaasi hanaan kala duwan loo daweeyo oo doctorka markaasi uu aad u sharaxay dad badan ay aad uga faa'iideysteen. waxa sidoo kale kasii horeysay isla animihii kale ee la xiriiray isla dhamaanba arrimahaasi markaa iyaguna ku aadan hormoonada kala duwan iyo markaasi iyaguna caadada iyo goobaha kala duwan ee ku socotay qaabka markaasi iyaduna ay ku imaadeen xanuunada kala duwan ee dumarka ay wajahaan iyo waxyaabo lamid ah oo idina toddobaadkii kasii horeeyay markaasi aanu ka soo hadlaynay. caawa hadduu aan leedmo waxaynu ka hadli doonaa dhinaca dhalmada gaar ahaan qaadista dhinaca uurka ugu horeyso ilaa iyo maalinta ugu dambayso ee markaasi iyaduna dhalmada iyadoo markaasi la sheego in siyaabo kala duwan markaasi iyaguna ilmaha ay ku yimaadaan qaar madax la hormaro qaar luga la hormaro qaar dhinac soo baxay iyo waxyaabo lamid ah iyaguna ay kala jiraan ama ay yihiin. sidoo kale qaliinada iyaguna iyo waxyaabaha sababo ayaa qayb ka ah waxyaabaha caawan soo qaadi doona hadduu aan leedmo oo markaasi iyaduna keenaysa in dumarku markaasi ay keenaan ilmaha qaarkood marka ay dhashaan ama markaasi hanaanka bilaha ay ku dhashaan iyaguna haday tahay kuwa yar iyo kuwa badan iyaduna waan soo qaadi doonaa hadduu aan leedmo hanaanka kale ee lagu korin karo iyo waxyaabaha markaasi ku socdo talooyinka hooyada markaasi la siinayo ayaa iyadana qayb ka inta aan sii wadi doonaa hadduu Allaha awood la yiraahdo. aad ayaan u sharaxi doonaa annagoo markaasi ugu dambeynna bal heli doona muuqaalkii gaarka ahaa ee doctorku inoogu talagalay si markaasi iyaduna qayb kale muhiim ah aan uga soo qaadano isla arrimahaasi. marka aan soo dhaweeyo Dr. Cali Macow Aweys. doctor soo dhawo. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبار ديري مركلة آديات بانكو مهد علنايا مركان توبيق عاو ربنا إنان كهذلنو ندبو وصو نقضو توبيق عاو ربنا إنان كهذلنا وقفك الدمرك أورك قاضة أورك مركل قاضو بش الكوبات هنك بلونو يا بش لبات لحد ويك هوري أما لبض بيل سيديد ويك هوري waxaad dareemaysaa xoogaa culeysaad dareemaysaa waxbaa kugu kordhaya waxbaa kugu koraya gudahaaga. markii meeshaas la gaaro ayaa waxaa ku imaanaya cuntada inay kuu soo urto, cuntada inaad diido. marka
todoba week 8 week 9 week markaad gaarto mantag aa ku imaanaya qaaca fara badan cuntadii aadan cuni karin dumarka qaarkood waxba ma cuni karaan waa dhamaanayaan ayaga dhan taasna khatar waaye maxaa dhacay nafaqa xumaa kugu dhacaysa dhibaataa kaa gaaraysa adiga iyo cunugaagaba marka waxaa fiican saas haddaad isku aragto dhakhtar u tag oo fiican oo maaragtay cudurkaaga wax ka yaqaan oo mantagana kaa joojiya oo mataqaanaa aad ku najixi karto oo cuntadaadana tartiib wax aad u cuni karto cunto kasta ma cuni kartid laakiin ilaa 3 bilood ay ka dhamaanayso oo bisha afraad lagu had ka gashanayso waa ku dhibaya marka horta waa bisha labaad iyo bisha saddexaad marka bisha saddexaad la galo ayaa waxaa kuu furmaysa cuntadii baa kuu furmaysa waxaad bilaabaysaa haddaadan dhib kale aadan arkin oo aan jug ku gaarin ama dhiig iyo waxyaala lamid ah haddayna kaa imaanin waxaa jira dumarka ilaa 40% baa lagu sheegaa makaankooda daciifa ah marka maxaa imaanaya markay 3 bilood gaaraan ama 2 bil iyo barba dhiigaa imaanaya dhiig hadduu yimaado tirtir ah marka hore haddaadan u bixin aadan wax ka qabsanin isla markii wuu sii soconayaa ordaysaa takhtaraa u tegaysaa takhtar markaa u tagto dhiigga waa badanaya marka waxa waaye xaalkaaga beriga dhexe ilmihi way soo daadanaya marka intaadan heerkaas gaarin dhakhtar la xiriir intaadan 3 bilood gaarin ama dhibaatadaas aan kuu keenin waa tii aan ka hadalnay wiigii hore iyo wiigii ka horeeyey marka fibroidka waataan ka hadlaynay wiigii ka horeeyey wiigii soo dhaafayna waataan probiotka ka hadlayn kuwaas ilmaha waa soo tuuraa waxaa kaloo ilmaha soo tuura cudur la yidhaahdo brucella iyo cudur kaloo la yidhahdo toxoplasma brucellaha oo laga helo hilbaha oo gaduudan ariga lo-da iyo geela toxoplasmaha oo laga helo mukulaasha annagana hadda Soomaali nahay mukulaal waa wada nool nahay 24 saacadood jikadeena ugu jirtaa marka saas daraadeed kuwaasaa soo tuura ilmaha haddii wax kale dhibaato kale aadan qabin marka 4 bilood la maro oo 5 bilood la gaaro culeysaa kuu imaanaya culeyskaas marka waxaa la rabaa adiga inaad dhaqaaqdo macnaheedu waxa waaye maalin walba socod inaad socoto halkoo saac ma aragti ama odagaaga gacanta ka qaba ama walaasha ama qafkii kula jooga socda 1 saacadood dhaqaaq markay 5 tahay markay 6 tahay markay 7 tahay markay 8 tahay dhaqaaq maxaa dhacay de bisha 6 ilmaha lugahooda koray jiraan madaxa korow jiraa lugahana hoosay jiraan waxay bilaabaysaa bisha 5aad bisha 6aad bilaabaa inuu soo gadoonoo bilaabaya marka wuu isi soo gedinayaa adiga haddii aad dhaqaaqdid socodkaaga uu socdo waa isi soo gedinayaa bisha 9aad madaxa hoos u imaanaya lugihii kor macnaheedu waxa waaye ilmihii bisha 9aad markay diyaar noqdaan madaxay keenayaan qaar waxaa jira cagakaan la yidhaahdo oo lugaha keenaya maba gadoomayaanba gadoon male marka maxaan rabaa halkan inaan ka sheego marka bisha 5aad bisha 6aad bisha 7aad haddii fadhigaaga u bato cuntadadaa badanaysa waa cuntaynaysaa biyo badanaa cabaysaa waa bararaysaa adiga bararaa ku imaanaya haddii aad bararto sokoraa ku imaanaysa dhiikaraa ku imaanaya marka cudur baasoo la yidhaahdo eclampsy marka 6-7 bilood aad tahay eclampsy la yidhaahdo oo aad jaraynayso pressurkii intuu kaco kaadida protein keento sokorka uu kacdo adiga xaalkaaga beriga dhexe waayo cudurkaas adigana waa dhibaato ku gaarsiinayaa ilmahaagana dhibaato gaarsiinaya haddii isla markii aan lagaa helin oo sida u dhaqsaa badan aan daawo lagaa siinin oo pressurka lagaa dejinin oo adiga lagu xakamaynin oo kaadidii sokortii la xakamaynin dhiigkarkii la xakamaynin dhibaato ku gaarsiinaya adiga cunugaagaba marka saas daraaddeed waxaa la rabaa 5 bilood ku bilow ama 6 bilood inaad socoto dhaqaaq 1 saac maalin walba 1 saac maalin walba sokortaad iska gubaysaa bariiska badan iyo baastada badan iyo moofada badan iyo shabaatiga iyo kuwaas iska yaree iyo shaaha macaan ma aragtay sokorta faraha badan
kaas laftigiisa iska yareey haddii aad karto intaas haddaad suubiso oo aad socoto maalin walba 100% aad tahay waa aad iyo aad baa u fiicnaanaysaa marka waxaad yeelaysaan taladaas yaan la ilaabin marka 9 bilood uu yahay ama cagakeen ha ahaado ama madaxa ha keeno cunuga wuu imaanayaa waxaa ugu daran markuu isgediyo oo xagga dusha uu soo gediyo dusha ma soo bixi karto meesha waa ciriiri marka waxa waaye dadka qalitaanka loo sameeyo waa kuwaas markii la arko inuu dusha saaran tahay madaxii inuu dhinac ku jiro lugihiina dhinac kale ku jiraan dusha ay hoos taalo markaas waaye marka inta loo baahan yahay in la qalo oo la sameeyo maaragtay Caesar in la suubiyo oo la soo saaro ilmaha meeshaas inta la jeexo ilmaha laga soo bixiyo haddii kale waa isku dhamaanaysaa waa hal qodob kalaa jira 9 bilood markaa tahay waxaa imaan kara dhiig aan meelow ka yimid aan la ogeyn oo kugu furma placenta brevia totala la yidhaahdaa khatar waayo haddii dhiiggaas markuu furmo nusu saac ilaa 45 daqiiqo gudaheed aan lagu qalin adiga iyo cunugaaga waa israacaysaan waa dadkii annaga aan ku sheegi jirnay soomaalida umul raac wax kale maaha qafkaas dhiig baxaaya oo cunugeena meesha ku jira oo mataqaana maxaa leedahay ibida naan ku dilaacday ibida dilaacaysa placenta ibida la yidhaahdaa af soomaali ibida kugu dilaacaysa placenterka markuu dilaaco placenta brevia totala la yidhaahdaa dhiig fara badan iyo xinjiro iyo waa dhiig bax baa kugu dhacaya oo aan la sheegi karin maxaa dhacay muddo gaaban 2 liitra kaa baxaya burburuba ah khatar waaye marka waa umul raacday dee aad maqlaysaan wax kale maaha waa taas waaye qaf guriga lagu ceshado markay saas oo kale ay dhacdo oo la yidhahdo umulisaa loo waco waxaa loo waco waa dhibaato marka qafkaas oo kale la carara sida ugu dhaqsaa badan cisbitaalka ugu dhow oo lagu qali karaa ha la geeyo caloosha haddii laga furo cunugaas laga bixiyo makaankana banaanka loo tuuro waa dhammaaday sheekada meeshay ku dhammaanaysaa qafkiina waa badbaaday cunugiina waa badbaaday hadduu alla idmo marka waxaad yeelaysaan cudurkan wax la yaraysan kara ma aha geedkan la leeyahay placenta brevia oo la dhiig baxaayo iyo cudurkan kale aan ka sheekeeyay hadda sokorta iyo dhiig karka iyo samaynayo laftigiisa wax la yaraysan kara ma aha marka waxaa la rabaa soomaaliyey wax la yaraysan karo cudur la yaraysan karaanba jirinba laakiin waxaa wanaagsan qafka dumarka markay uurka qaado indha in loo lahaado markasta la fiiriyo annaga Yurub ma aragtay Germany intaasoo aan joogay 34 sano aan ka shaqeynayay 3 week 4 week waa la baaraa computer la saaraa waa la fiiriyaa kaadiya la fiiriyaa dhiigkarka la fiiriyaa sokora la fiiriyaa waa la daba taagan yahay ilaa laga dhalo waxbaa umul raacay iyo waxbaa dhiigkar iyo saas ku dhacay iyo maqli meesid maxaa dhacay goor hore waxbaa laga qabanayaa marka goor hore wax laga qabtana dhib ma jiro laakiin annaga haddaan Soomaali nahay maalinka uurka la qaado ilaa maalinka laga dhalayo gurigaan fadhinaa gurigaan jiifaynaa marka weliba qaasatan sariirta lagama kaco khatar waaye waxaan leeyahay iska jira hadda waqti xaadir waxaa la joogaa adduun casri ah wax kasta waa heli kartaa ka dhaqaaq marka ha samaynina ma garatay marka cunugii oo dhan markuu isi soo gediyey siday kusoo baxayso bal waa kan halkaasaan idinka tusaynaa bal fiiriya cunuga saasuu kusoo baxayaa makaankii uu kasoo gudbi rabaa hadda halkii korow kasoo baxay meesha ugu hooseysa oo la yidhaahdo vagina ayuu hadda madaxa lasoo gelayaa saasuu usoo baxayaa ilmaha markaad aragto hadda markuu meeshaas yimaado waa isgedinayaa madaxiisa hoos u gedinayaa xoogaa yar markuu inta kasoo waa kaas waa isgediyey haddana madaxa markuu usoo baxo haddana waa isisii gedinayaa maxaa dhacay hawuu rabaa hadda hawo inuu qaato saasuu isku gedinayaa saasuu kusoo baxayaa gacnihiisana waa ujeedaa midna kor midna hoos saasuu kusoo baxayaa waka marka taasna waa ibidii oo meeshaas hadda gudahana ku xiran banaankana ku xiran cunugaas waa ka saasuu ku dhashaa meeshaas yar ayuu cunugaas ku korayaa
ilaa 9 bilood. hadda bal ilaahay mucjizadiisa waa taas, hadda mucjiza ilaahay waaye. alxamdulilah annaga dhan saasaan ku dhalanay, laakiin waxaad yeelaysaan taxadarka hala badiyo. aad baad umahadsan tahay doctore. waxaa jira xanuuno ku dhaca haweenku marka ay umuraan kadib ama ilmaha la dhala maalin ama 2 ama saacado kadib, kuwaasoo mararka qaar khatar caafimaad oo adag gelin karta ama qaarkoodba keenta inay u geeriyoodaan iyaguna. xanuunadaasi maxaa keena, maxayse ka dhashaan, maxaase dawo u ah? maxamed cibaar diiriye aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. inkastoo cuduradaas ay yar yihiin, haddana waxaa la yidhaahdaa trombosa la yidhahdaa, embolia la yidhaahdaa. xinjiro aa dhalan kara. xinjiradaas hadday dhashaan oo mataqaanaa haddii xinjiradii kor ay aadaan wadnaha ay gaaraan oo dilaa ah, haddii maskaxda ay gaaraanna stroke kugu dhacaya, kaas weeyaan. laakiin waxaa la rabaa koowgiiba in laga feejignaado. markay dhasho waxaa jira cirbad subax iyo habeen caloosha laga siiyo oo dhiigga khafiifinaya ilaa ay ka dhaqaaqdo ka socoto. maxaa dhacay de jiifkiyaa fara badan waktiga la qaado. anaga weliba soomaaliya haddaan nahay 40 maalmood baa la jiifaa. hala baaniyaa laleeyahay, maraqaa lagu daldalayaa iyo hilib iyo adduunaa la siinaya. wax fiican waaye, wax xun maaha baanada, laakiin waxaa la rabaa haddana la dhaqaaqo, la socsocdo sida dhiigga circulkiisa oo u shaqeeyo. annaga laakiin taas ma dhaqaan. waagii hore dadku way isaga dhamaan jireen, yaaba ogba wax ogba ma jiro. laakiin waxa tromboso waaye, trombosa la yidhaahdaa. lugaha barari kara, embolia kugu dhici kara, sambabka u istaajinaya, wadnaha strogna waa keeni karaa. aad baad umahadsan tahay. haween badan oo waxaa jira iyaguna uurka qaada, haddana ilmahaasi iyaguna ay kasoo dhacaan ama dhiig furto, hadday 6 bilood yihiin, hadday 3 bilood yihiin iyo waxyaaba lamida. mar iyo 2 iyo 3na ay arrintaas iyadaa dhici karto. maxay tahay sababta marka iyadoo dhiiggaasi furaysa ama haweenkaasi keenaysa mar walba inay ilmahaas iyaguna soo dhaafaan? maxamed cibaar diiriye su-aashan lafteeda waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. waxa keeni kara wax kale maaha, adiga markii horeba haddaadan is ogeyn caafimaadkaaga oo hormoonadaada disbalance yihiin oo ay wax kala qaldan yihiin, waa keeni karaa. cuduradii aan soo sheegnay wiigii hore iyo kii ka horeeyey oo probiotka lamid ah oo fibroidka lamid ah way kamid yihiin. cudurkii kaleo hadda aan ka sheekeynayo oo brucellaha oo hilbaha ariga, lo-da iyo geela iyo caanihiisa laga helo, iyo cudurka kaleo toxoplasma oo makulaasha laga helo, ayagana waa keeni karaa. weliba cudurkaan laleeyahay toxoplasma wuxuu dhibaatadiisa leedahay haddiiba uurkii xataa aad qaadda ilma indhoola aad dhalaysaa, ilma aan indha lahayn. marka waxaa fiican uurka markaad qaado iska fiiri cuduradaas. waa lagu daaweyn karaa, dawo ilaah baa haayo, caafimaadna alla haayo, waa la isdaaweyn karaa. laakiin maaha keliya. hadda aniga dad badan aan aragnaa kowdhe cisbitaalkayga runtii, oo dad fara badanna waa ka helnaa cudurkan brucella la leeyahay iyo toxoplasma. marka wax fudud maaha. waxaa wanaagsan in laga feejignaado goor hore, laga socdo intaadan uur qaadin. annaga 2 mudba waan ku talaan siinaa. uurka intaadan qaadin isbaar, hormoonada iska fiiri, adiga isfiiri cudurra ma jirkaaga ku jira, infectiona haddayna jirin, HIV, maxaa la yihahdaa geedkii kale hepatitis B iyo C iska baara. tilaalaa laga siin karaa qofka haddii ninka ragga uu qabo, gabadhaa tilaal la siinayaa, wax dhib ma jiro. ma u baahnidin inaad kala tagtaan, idinkoo wada jira caruurna dhali kara, adigana waa laga hortegayaa oo tilaalaa lagu siinayaa. isagana mataqaanaa hadduu qabo tilaalaa la siinayaa, waa dhamaatay. marka waagii hore ahayd hadduu cudurkaas qabo ka carar. HIV keliya ugu daran, kaas waa khatar, kaas in laga feejignaado waaye. laakiin kuwa kale dhib ma jiro oo wax laga qaadan karo. waa hagaag. aad iyo aad baad umahadsan tahay Dr. cali maco aweys. daawadayaal markana u diyaar garooba qaybtii teleefanada ee daawadayaasheeda markaas iyaduna aan ugu talagalnay inay barnaamijka nagala qayb galaan, annagoo markaasi fursad ballaaran u siin doona wax kasta oo su-aalo oo ku saabsan barnaamijkayga caawa iyo markaasi wixii kale caafimaad iyaguna khuseeya isla arrimahooda caafimaadka inay nagala qayb qaataan hadduu allaha u wadi la yiraahdo. fursadaas ayaan idin siinaya. markaas waxaan rabaa inaan idin sheego oo mar kale idinka codsado oo mar kale idinka codsado oo mar kale idinka codsado inaad TV-ga gaabisaan daawadayaal. fadlan TV-ga gaabiya marka barnaamijka aad ka qayb galaysaan. daawadaha ugu horeeya ee caawa khadka taleefanka soo garaacaya ayaan fursad siinayaa. hallo STN. hallo
soo dhawow magacaaga meeshaad naga soo wacday ismaaciil oo wajeer joogo ismaaciil haye su-aashaada iigu celi si wanaagsan wiigi hore una soo wac b h haye 8.5 b h ka haye volume ya volume ha volume waa 3.5 haye liquid ka imisa haye 80%. ma fahmin mar iigu celi liquid time 20 he 20 minute haye haddana maxaa arkaya motility 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 progressive 85%. motility progressive waa 85%. Motility non progressive haye 85%. haye Sperm count may 320 million. 320 And 20 million. 320 million. صح هو. Sorry, 32 million. 320 million. 320 million haye haye waa spam counting. Marka maxaa waaye sperm normal ay ku qoreen sperm. Counting Waaye tan soma? si fiican counting kana Yeah. counting kana spam counting. Normal ay ku qoreen normal. Okay, just normal haye Normal ay ku qoreen. wiigi hore aan sheegay haye okay toddobaadka horena waa su-aasha waana weydiisa maaha Yeah. toddobaadka horena su-aashaana weydiisa soo maahayn Waan ku weydiin laakiin markay qardaf gacan ku marin hadda qardaf gacan ku aan si fiican kugu sheego. waayahay waxaadna weydiisay marka waxaa waaye b h oo 8.5 ah iyo volume oo 3.5 ah iyo liquid time oo 20 minute ah iyo waxaa la yidhahda motility progressive oo isaguna 85% ah iyo spam oo 320 million ah Progressive oo ayna 100%. progressive oo 100% ah ما بس اوكي waayahay doctorka la soco markaa Motility non progressive. Kuna motility progressive na motility non progressive. بس waa 85% iyo 100%. ولا قاعد Good. Countana maxaa waaye taasoo 2 million. haye doctorka la soco markaa ismaaciil aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga iyo s t n star t v waxaan rabaa adiga inaan ku salaamo reer wajeer waa dadkaygii dadkaasna waa salaamayaa meel kasta ay joogaan khaasatan reer buul calimaco yaana ilaabin magaceeyay wataan marka ka bacdi ismaaciilow inta hadda aad sheegtay waa normal caadi waaye normal waaye kan hadduu ilaahay ku siiyo ilma waa ku dhali kartaa intii la doono kulli volumeska waa fiican yahay spam accountka waa fiican yahay motilityga waa fiican yahay mataqaanaa kulli ma aragtay boqolkiiba boqol hataa liquidka 20% waad fiican tahay wax kaa xun ma jiro wax dawo u baahanna ma qabtid hadduu alla idmo adiga boqolkiiba boqol hataa ka seexo waa hagaag waa markaasi jawaab dhammaystiran oo lagu siiyey ismaaciilow waa normal baa lagu yidhi wax walbo ilaahay markaasi ubad khayr qabaa ku siiyo khadka xiga hallo stn waa ka xumahay khadkaas waa isweynay telefonku ka baxay inaad dib ugu soo noqotaan rajeynaya khadka xiga ayaan se uga faa'iideynaya mar kale khadka xiga hallo stn hallo 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 Hello. soo dhawow magacaaga meeshaad naga soo wacday Kowsar aadan aan idhaa waxaan ka soo wacay County Mandera. kawsar soo dhawow Waan dhawahay. haye su-aashaada u gudub Aniga waan xanuunsanahay. haye Liijiray waxay igu dhacday dhiig wareer marka hore. haye Ii toosay. Cunug 3 sano jiray joogo. Bishii koowaad waxaan dhahay cunug ugu dhintay. Haddana maxaa dhihi lahaa bishii koowaad ilaa hadda
حاجة يقولوا لما قاعدين وأنا حمصتها حوالي حق وواحد حق صح أسوي فيديو waa hagaag imise jir baa tahay تفضل إذا آخر سنة 34 waad mahadsantahay doctorkan u gudbinaya ka hosareeya kowsaray aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa marka ugu horeysa adigaan ku salaamayaa aniga iyo s t n oo caawa life aanu fadhino meeshaan star t v magaalada nairobi waa kugu mahad celinaynaa su-aasha aadna weydiinayso marka xigta waxaan rabaa adiga ugu horeysa reer Mandera county meel kasta ay joogaan soomaalida khaasatan inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka intaas laga baxo kowsare adiga horta infection xoog badanaa ku haya kow waxaad u baahan tahay runtii baaritaana u baahan tahay waa inaad mataqaanaa heshaa dhakhtar computerka hoosta la geliyo transvaginal scanner la yidhaahdaa ku fiiriya inay buro jirto iyo wixii cari ilmaha kaasoo tuuray in la ogaado iyo hormoonada inay dhibka jiraan xabka kaa socda aad sheegaysana waa infection 4 week ka hor 5 week ka hor aan ka sheekeynaynay infectionadaas xabka kamid ah kala nuuca ah kuwa soo harfaayo adiga soo mataqaanaa smelling sameynaayo kuwa kale waa ka wada hadalnay cuduradaas oo dhan marka waxaad yeelaysaa adiga dhakhtar sida uu dhaqsaa badan dhakhtar u tag ha isku daahinin cudurka hadduu daaho ogxaanta iyo dhibaatay kaa gaaraysaa makaanka iyo tubooda inay kaa xiranto ayaad ku siganaysaa khatar waaye marka waxaad yeelay sida uu dhaqsaa badan dhakhtar u tag aad buu u mahadsan yahay dr cali macu aweys mar kale khadka xiga ayaan siinayaa yaasna telefonka ku jira doonaya inuu barnaamijka nagala qayb galo hallo stn hallo hallo stn waa hagaag daawadahaas waxaan u malaynayaa inuu isagana usan maqal badan jirin waxaan rabaa inaan daawadayaasha ka codsado si wanaagsan ba ilaa hadda barnaamijka ku socdaa sida dadkii ka qayb galay markaas barnaamijka iyaguna noogala qayb galay ay telefonada ama tviyada u gaabiyeen si lamid a ayaan idinkaga codsanaya adinkuna inaad u gaabisaan si aad markaa barnaamijka dhinaciina aad uga qaadataan oo muhiimad gaara adinkuna idinkugu yeesho daawadayaasha kale khadadka telefonada soo galayo ayaan weli fursad kala siinaya hadduu aan la idmo si ay qaybtooda uga qaataan dhinaca barnaamijka oo markaas wixii su-aale iyaguna ay qabaan ay noo weydiiyaan haddaba oo aragtiyadooda kala duwan markaas iyaguna ay noola wadaagaan hadduu aan la idmo khadka xiga hallo stn waa hagaag daawadayaal waxaan idinka codsanayaa markaas iyo mar kale inaad weli tviyada iska gaabisaan mar kaste oo tvgu kugu dheeryahay waa mar kastoo markaasi adiguna ay adag tahay inaad nagala qayb gasho dhinaca barnaamijka sababtoo ah waxay keenaysaa in codkaagii iyo waxyaaba lamid ah isaguna uu googo sameeyo sidii la rabay markaasi adiguna barnaamijka aad uga qayb geli weydo ama aad uga qayb qaada weydo taasoo markaasi iyaduna saameynteeda markaa iyadoo laftigeeda yeelanaysa oo adkaanaysa khadka xiga ayaan siin doonaa hadduu aan la idmo hallo stn waa yahay weli daawadahaas isagana ma hayo oo waxaad moodaa dhinaca khadka inuu cilad badan ka jirto daawadaha xiga aan siiya mar kale hallo stn hallo waa hagaag weli waxaad moodaa ciladii dhinaca tvga inayna haysato oo dadku tvga iyo telefonku waa u kala horeeya hadda markala idin kugu celinayaa dadku tvga iyo telefonku waa u kala horeeya waxaad moodaa in markaasi tvgu uu codkiisa wax badanna dambeeyo oo markaasi sidaas labada dhinac aysan isula soconin iska gaabi si aad barnaamijka noogala qayb gasho aragtidaadana aad noola wadaagto hadduu alla idmo wixii su-aale aad qabtana aad doctorku weydiiso waxyaaba caawaanu ka hadlayna waxay ahaayeen dhinacyo weliba sidoo kale dhalmada anagoo sidii doctorku horeyba idinkugu sheegay burooyinkii kala duwanaa ee brobiyoodka iyo waxyaabaha lamidkaa toddobaadkii kasii horreeyay markaas iyadana aynu ka hadlaynay taasoo markaas iyadana ay kasii horreysay dhinacyo weliba sidoo kale infectionada kala duwan oo iyaguna markaasi awood kale aan saarnay oo aad aanu uga sii hadlaynay toddobaadkii markaas iyaduna kasii horreysay oo waxaasoo dhan aanu kasii hadlaynay khadka xigaan siinaya mar kale iyo daawadayaasha weli doonaya inay barnaamijka nagala qayb qaataan hadduu aan la idmo hallo stn وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga meeshaad naga soo wacday faadumo gaariso ku sugan su-aashaada u gudub waxaa walaalo ameesada dhagaxa igaga jirta ameesada dhagax iga jira hal beeshimaan ila ameeshinkana waa yara qaban waayey xanuun baana ahayo waa labalaboon waa mantaqi ciladaasaa ahayso abeeshina weli ma gelin hal abeeshimaan layidhi computer baa la istaaray hadda niyow lugahan xanuun fara badan ka dareemay oo idikaan lugaha idikaan oo xididaha sidiisoo kabuudan oo waxaan ka dareemay kabuudya oo istaabaan tagay haddana waxaa lihi neerfaad leedahay daawada iimay qorin ciladahaasa ay haysataa niyow imise jir baa tahay waxaan jiraa 50 sano
waad mahadsan tahay faadumo waxaan u gudbinayaa doctorka bal jawaabta su-aashaada hadduu aleedmo haye faadumo aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa aniga iyo star t v oo live aan u fadhino caawa magaalada nairobi marka ugu horeysa adaan ku salaamayaa faadumo marka xigta reer gaarisa meel kasta ay joogaan khaasatan soomaalida waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka intaas laga baxo horta xamiitada dhagaxa ku jira ha ku jiro sharuudaa jirta oo inaad buuxiso loo baahan yahay haddii qalitaan la rabo dhagaxa ku jira iska qal keliya maaha waxaad sheeganayso xanuunka aad sheeganaysana wax waa laga qaban karaa ilaah baa waxqabad iska leh daawona alla haaya caafimaadna alla haaya laakiin sharuudaa jira sharuudda jirta waxa waaye haddii xamiitada dhagax ku jiro oo beerka infection uu sheegayo oo xamiitada infection ay sheegayso oo ganaca laftigiisa ay taabatay markaas in la qalo waa qasab waa la bixinayaa 3 meela lagaa duleelinaa qalitaan inta lagu jeexo ma aha maanta casriyaa la joogaa 3 duleela la sameynaa xamiitada lala baxaya iyo dhagxaantooda waa dhamaatay waaba meeshay ku eg tahay week ilaa 10 beri gudaheedna gurigeeda aadaysa xanuunna ma jiro laakiin horta sharuudda ma buuxisay oo sharuuddaas ma jirtaa iska qal keliya maaha taas waxa waye tan xamiitada horta waa in la ogaadaa haddaad sharuudda buuxisay annaga reer yurub sharuudaa jirta sharuuddaas haddii la buuxiya khasab waaye bahasha waa lala baxaya haddii sharuudda aadan buuxininna waxaa la isku dayayaa cudurkaaga si fudud in lagaaga qaado hadduu alla idmo ilaah baa qaadi kara in lagu fududeeyo taasaa la rabaa waaya aad iyo aad buu umahadsan yahay marka ti kale su-aashii kale ay sheegatay neerfaha lugaha lugaha dawow leeyahay haddii kabaabyo ay jiraan haddaadan sokor qabin sokorta ayaa kabaabya keenta badi marka neerfo waaye dawo ma aragtay oo vitamin oo neurobion la yidhahdo haddii ay qaadato wuu kaa baxayaa wax weynba maba ahba kan haddii adiga aadan sokor qabin sokor haddaa qabto polyneuropathy wax la dhaha jira oo kabaabyadaas keenayo oo lagu xanuun keenayo ama waxyaala lamid ah haddii dhabarka aan lagaa hayn haddii dhabarka lagaa hayna lagu xanuun waa jiraa saas waa aad baad umahadsan tahay doctor cali maco aweys daawadayaasha kale ee khadadka teleefanada soo gelayo an mar kale dhinacooda jaleeco hallo weysten khadka xiga hallo soo dhawow magacaaga meeshaad naga soo wacday hallo 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تيفيga iska gaabi buuqa ka dheerow su-aashaada iyo meeshaad joogto iyo magacaaga intaba na sheeg farxi xageed naga soo wacday haye su-aashaad u gudub tv-ga gaabi marka la farxiyo mar kale tv-ga gaabi fadlan haye haye 2017 baa u timid 2017 bishii lixaad iigu celi waaya 2017 صح korkiina sidaas oo ku noqdo caaro darteed markii 2017 markaa dhakhtarka u imaanaysa maxaa iska daweynaysa 2017 markaa doctorka u timid maxaa iska daweynaysa 2017 markaa doctorka u timid maxaa iska daweynaysay waaya صح imise jir baa tahay waa yahay doctorka la soco jawaabta ku siinaya hadduu aleedno
farxiya farxiya aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga iyo Star TV oo live aanu fadhino magaalada Nairobi. marka xigta reer Mandheera oo adiga ugu horeeya Soomaalida khaasatan meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka farxiya markii adiga haddii caaro aad maqasho oo aad caaroonayso wuxuu ka imaan karaa meelo fara badan. dhiiggaaga hadduu jiran yahay caaradaas waa imaan kartaa. caloosha haddii aad ka jiran tahay waad caaroon kartaa. beerka haddii laga hayo ama xamiitada caaraa jirta waa cuncunaysaa, adiga dhan waa iscunaysaa. intaas markii laga baxo cambaaraa jirta oo isagana mataqaanaa oo badi caloosha uu ka socdo. cambaartaasoo maaragtay jirka dhan weliba ugu badan meelahaan iyo meelahaan hoose lugaha gadaashiisa iyo meelahaasay u badan yihiin iyo dhabarka. hadday kuwaas yihiin adiga waxaa loo baahan yahay si fiican inaad isaga cirib tirto. si taridsiin waxba ma sheegayo, dhibaatadiisaa badan, dhibaato fara badan oo kuu geysanaya. 32 sano haddaa ku jirtidna gabar yar baa tahay weli adduunkaaga dhan horay ay ku jiraan. marka waxaad yeelaysaa beerka iska fiiri, dhiigga iska fiiri gaduudan weliba CBC-ga la yidhaahdo si fiican lagaaga fiiriyo. beerka iska fiiri iyo xamiitada. marka intaas lagaa fiiriyo saxarada iska fiiri. marka intaas laga arko caloosha ayaa la ogaan karaa waxa cudurkaaga uu yahay, waana laga cirib tiri karaa hadduu alla idmo. annaga makiinooyinna waa haynaa, waxaasoo dhanna waa haynaa, laakiin meel dheeraa jirtaa, isuma dhowin. bal raadi horta hore dhakhtar waxaan kaa baarbaara hadduu alla idmo. waa hagaag daawadaha ugu dambeeya ee khadka taleefanka ayaan siin doonaa isaguna su-aashiisa. hallo STN. hallo waa hagaag daawadahaas inuu khadka ka maqan yahay ayaan filayaa saate inuu kusoo noqon doono ayaan rajeynaya. khadka xiga aan u gudbo. hallo STN. وعليكم السلام ورحمة. magacaaga meeshaan naga soo wacday. maxamed ciyaartii oo salaama magacayga alla maymuun ismaaciil magaalada gaarsan jooga. maymuun soo dhawow. waan dhow yahay. haye dadkana waan salaamaya. waa kaa qaadnay dhammaanteen. haye marka waa xanuunsanaya jirkoo dhan ba ay xanuuni. marka isada markaas reer alig iyo gaas waxaa bay u sheegayaan. waaya garbaha ilaa lugaa wax laga kuskuusan. waaya marka way xanuunayaan. si wanaagsan. markaan saa u dadaalo aan dadliyo ma ayaamaha waa la xanuunsan ba. shaqada ii daran tahay socodkana way darin. صح. marka isaga markaa maanta wax weyn lagu sheegay marka wala isaga markaa waxay leedahay waa alif waa qabtaa gaas waa qabtaa caloosheedana ma jilicsan. si fiican. waa calool adag. aad iyo aad. marka bacalaad madaxa ka samaata madaxa oo isoo soo dhaqan way cunani intaa way cunanayaan. صح. وين حنوني لو ما جينا قاعد ما نبدل لو فلسنا لو دي ما نبدل لو فلسنا كانوا ما قاعد تسمي كلام كنت سامع كان راح المنطق كان بيجي أديات دربها وصلت وقرأت أنا إمسك شربة تاعي صدقني وأصل وايه دكتور كان موجود بيني أدوري اسمه ميمونة أنا ما تتكلم معاه زين تتكلم معاه إنه يحنون عيان good هيه أدول إن شاء الله جوابت هذا لكن بقى تختار كان رأينا هاي إن شاء الله ما سنت الدكتور كله صح maymuuney aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa aniga iyo Star TV oo caawa live u fadhino magaalada Nairobi. marka xigta reer Gaarisa mar labaad waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan khaasatan Soomaalida salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaas markii looga baxo maymuuna adiga calooshana waa laga hayaa saxarada horta iska baar iska fiiri keliyaha iska fiiri rheumatismka waxa la yiraahdaa iska fiiri rheumatismka haddiiba gabar saa u yara 34 sano ku jirto murqaha dhan laga hayo jointka laga hayo oo mataqaana saxaradana ku adag caloosha ayaa u badan waxa adiga ku haya caloosha laakiin caloosha iska fiiri keliyaha iska fiiri kaadida hala fiiriyo markaas kadib hala fiiriyo rheumatismka waxa la yiraahdo marka intaas la helo daawadiisu waa la helayaa hadduu alla idmo ilaah baa daawahaya caafimaadna alla haya laakiin intaas haddaad hesho waad caafimaadaysaa hadduu alla idmo laakiin waa inaad heshaa dhakhtar aan ku dhehayni markasta gaasaa qabtaa keliya gaas keliya maa meesha arrintaada way ka culus tahay gaas fiiri dhakhtar fiican inaad hesho hadduu alla idmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Dr. Cali Maco Aweys daawadayaal waxaan aad iyo aad uga cudur daaranayaa daawadayaasha telefoonada garaacayo inaan siin karin sababo la xiriira dhinaca waqtiga inaga dhacay wasaata waxaan idin ballan qaadaynaa hadduu alla idmo toddobaadyada soo socda inaan idinka xaqabtiri doono iyaduna aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin hadduu allaha uu wadi la yiraahdo ka qayb qaadashada dhinaca barnaamijka iyo waliba sidoo kale hanaanka quruxda badan ee caawa TV-ga aad u gaabiseen oo markaasi aad telefoonada si wanaagsan uga qayb qaadateen ani Dr. Cali Maco Aweys isku duuban iyo dhamaan xarunta Maco Aweys International Hospital ba waxaan idinkaga teganaa sidaas iyo nabadgelyo. Maco Aweys International oo aad horay uga barateen adeegyo caafimaad oo heerkoodu sareeyo ayaa hadda ku ogeysiinaya inuu ka guuray xaruntii hore. Isbitaalka Maco Aweys International ayaa laga furay Tennis Street ee xaafadda Islii. Wuxuuna isbitaalku degan yahay 4 ka mid ah dabaq ka kooban 12 biyaano. Maco Aweys International ayaa ku haya adeegyo uu heerkoodu sareeyo waxaana intaa dheer in lagu soo kordhiyay qalab caafimaad oo aad u tayeysan. qalabka baaritaanada ee lagu soo kordhiyay isbitaalka ayaa ah kuwa casri ah oo aan weli noocooda lagu arag gudaha dalkan Kenya kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka lagu ogaado xanuunada ku dhaca kaliyaha wadnaha beerka iyo inta badan urku jirta waxaana isbitaalka ka howlgala dhaqaatiir ka timid dalalka qaaradda Yurub sida dalka Jarmalka oo ka mid ah dalalka ugu horeeya caafimaadka caalamka oo dhan isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo qaabilsan adeegyada degdega ah bukaan socodka bukaan jiifka qaybta dhallaanka iyo qaybta haweenka umulayo Maco Aweys International Hospital wuxuu kaloo ku hayaa adeega caymiska caafimaadka qaran ee NHIF-ka kaasoo qofkii kaar wata uu si fudud isugu daweyn karo haddaba kaalay oo maanta soo arag Maco Aweys International Hospital si aad u hesho daweyn iyo talooyin caafimaad wixii faahfaahin intaasi dheerna kala soco nambarada shaashada kaaga muuqda